yahay nin walba inuu asagu wax raadinayo inuu mataqaanaa siyaasaddan waa siyaasadda loo bixiyey siyaasadda muufaysiga jagaa la raadinayaa waxaa la raadinayaa ma erga la ii magacaabo ama mataqaanaa hadda wasiirro badanaa maqan oo boosaskoodii bannaan yahay rag baa jaakada usoo tashay already ayaan xanta hoose waa la soconnaa iyo waxaata xuuraanka jaakadaa loo soo tashay marka waxa weeye in wax la wada helaa la rabaa waxbaa la raadinayaa siyaasadda soomaalida ahuna waxa weeye mar walbaba ninka meesha fadhiya in la roxdo oo wax laga qaato ama qof baad u keensanaysa leeda qofka ii shaqaale ama mataqaana anaad leedahay meele ama magaranaysaa mucaaradadu meeshay ka soo bilaabanaysa waxa weeye dagaal kadibna bal inta madaxtooyada lagaga yeero la yidhaahdo maaragta niyahow dee waa ku sidee beryahan hadalladaadu aad bay u kulul yihiin dad kicin iyo waxbaad wadaa waxaa jira sharci baa isaguna jira sharciga meel baa la iska dhigaa sideedaba horta qofku hadduu siyaasi yahay luuqadaha qaar waxa weeye inuu iska ilaaliyo mas-uuliyadu waa inay hadalkiisa ka muuqato ee aanu ku talax tegin mataqaanaa la iska ilaaliyo waxay u baahan tahay nidaam siyaasiya in loo hadlo laakiin qodobkaas ah in wax la luxanayo waa dhaqan soomaaliyeed oo siyaasadeed oo soo jireen ah weeye ninkii uu suuqa ka qaylqayliyo dabeetana qayladiisa la maqlo dabeetana barakabeelihii u yeera la yidhaahdo yaa naga aamusiya waxa uu ku aamusana la siiyo marka intaas kama duwana waxaa kaloo soo raaca taas nin mataqaanaa isaguna shaar kale tolanayo ah inuu booskaba rababa inuu meesha ka kacsadaba raba ayaa jira isaguna oo dadka tusaya duldaleelo uu leeyahay xumaan uu leeyahay waxbuu boobayaa waxbaa la hadayaa cadaalad meesha kama jirto ma garanaysaa awooddii oo dhan buu marooqsaday haddaan maqlaynaa xilligii farmaajaan maqlaynay xilligii ka horreeyaan maqlaynay wax weligeed soo jira weeye awooddii uu marooqsaday ra-iisul wasaaruhu meeshuu iska fadhiyaa wax matara weeye tolkiisa uma hadlayo 4.5 meesha ku jooga dhaqankeenna siyaasiga ah haddaan soomaalinahay ayaa dhaqan noocaas ku dhisana waxaa meesha ka baxay cabdixaafidow macnihii dawliga daljacaylkii nafuranimadii in mataqaanaa qaranka wax laga dhigo in dadka shacabka wax muuqda la qabto in jidkii la dhiso waxaan arkaya tusaalaha waxa kuugu filan nin madaalo la yidhaaho duqa magaalada muqdisho ah oo bakooro dad la dhacaya magaalada haddaad aragta qashinka yaalla waxay u baahan tahay dhowr baabuuro inta loo keeno qashinkaas maalin walba la guro magaalada haddaad aragta nadaafadxumada roob yar hadduu dego magaaladu waa kala go'daa wax yaroo waxaa laga yaabaa dhaqaalaha ka soo baxa dekadda iyo eeraboorka gobolka banaadir xisaab buu ku leeyahay xisaabtaas waxay xisaabtii wax muuqda oo hadday tahay mataqaanaa waxbarashada ay tahay hadday tahay caafimaadka hadday tahay mataqaanaa meelo goobo kala duwan oo bilaash oo umulasooyinka iyo lagu umuliyo iyo mataqaanaa dadka danyarta ay ka faa'iidaystaan absolutely intii waxa uu ka shaqayn lahaa shaqadiisi waxay noqotay inuu bud inta qaato uu dadka carruur dad dhaleen uu la dhaco maalin walba marka waxyaabahaasoo dhan waxay kutusayaan inaysan arkaynin siyaasiyiinteennu masawirka weyn ee ah wax ka qabashada dalkan 30 sano burbursanaa oon jid iyo jardiino iyo wax uu leeyahay aan la arag cabdixaafid injineer aad iyo aad ugu mahad celinayaa waxaan jecelahay inaan markaan bal qodobkan aynu eegno UN resolutionka la geeyey ama draft resolutionka ay maraykanku ay geeyeen waagii hore wax walba fiituu saari jiray ninkii Joe Biden ahaa madaxweynaha maraykanku ma soo dabcay mise duruuftaa sanka ka durtay daruufta waxa weeye arrinta tani cabdixafidow dagaalka meeshaan ka socda dagaal foolxumo weeye dagaal waxa weeye qarniga maanta la joogo waxa lagu samaynaya qasa dagaal noocaasa waxa ugu dambeysay dagaalkii labaad ee adduunka dagaalkii labaad ee adduunka waxaa dhacay magaalooyin badan oo la tirtiray la baabi'iyey waxaa ka mid ahaa magaalooyinka Russia ku yaalla sida Leningrad iyo magaalooyin caan oo waxaa jira gebigooda oo dhulka la St. Petersburg iyo dhulka la dhigay inta diyaarada la qaatay ayaa duqeyn 24 saac markaasaa 100,000 qof lagu laayay
waxay kaloo ka dhacday markii jarmalka laga adkaadaa magaalooyinkiisa la duqeeyey dresden ka mid ahayd magaalooyinka la duqeeyey dresden iyo chemnitz iyo magaalooyinkii waaweynaa ee macnaha lahaa berlin lafteeda waa la burburiyey si arxan darri ah sideedana dagaalka cabdixaafidow waxaa jira shuruuc caalamiya oo laisku waafaqsan yahay shuruucdaas sharciga number 1 ka ah waxa weeye oo war crime ka ah waxa la yiraahdo distinction in kala sooc marka aad rasaas meel ku ridayso inay ku kala soocan yihiin waxa mamnuuc ah inaad shacab rasaas ku rido waxa mamnuuc ah inaad goobaha shacabka sida goobaha waxbarashada goobaha mataqaanaa isbitaalada iyo caafimaadka goobaha maaragtay wax lagu caabudo sida masaajidyada iyo kaniisadaha iyo goobaha shacabku ay ku nool yihiin waa ka mamnuuc in la bartilmaameedsado marka qodobkaas waa la jebiyey oo maantay 80 sano kadib waa markii ugu horreysay ee cidu ay ku dhiirato dad shacaba iyadoon u kala soocin una isticmaalay inay shacabku yihiin dad hubaysan dagaalka waxaa la ogol yahay inaad weerarto dadka dagaalamaya ee hubka sita waa la ogol yahay dagaalka inaad weerarto iyo goobaha ciidamada ay degan yihiin waa la ogol yahay waa xeerka uu ogol yahay sharciga caalamka inaad weerarto qalabka ciidamka sida mataqaanaa maraakiibta dagaalka iyo magaranaysaa qalabka difaaca iyo waxaasoo dhan inaad burburiso waa la ogol yahay laakiin waxa qaza ka dhacay waa wax caalamka xaaraanka ah waxa kaaga daran weliba iyadoo maxkamaddii caalamku arkayso iyadoo UNT ay arkayaan iyadoo international community arkayaan ayaa la samaynayaa sharciyadii mamnuucayana waa yaallaa taas weeye tan haddaba su-aashaadeen kusoo noqonayaa qasabtay in ninka hadda maraykanka hogaamiyaha u ahay inuu arko inay mataqaanaa uu asaga laftiisu gacmaha kula jiro dembiye dagaal asagaa hubka bixinaya asagaa logistikada bixinaya asagaa mas-uuliyadda ugu weyn kuwan yuhuudda dad nacaybku ka batay oo dadkaa necab weeye oo inay tirtiraan rabi lahaa yuhuudka haddaad weydiiso wuxuu ku leeyahay falastiini fiican maba jiraba hadduu yahay caquur hadduu oday yahay falastiiniga fiican waa markuu meydka iyo godka xabaash ku jiro magaaladii qaza waxaa markii hore la dhihi jiray waxa weeye xabsi korka ka furane maanta waxaa lagu tilmaamaa waa qabuuro korka ka furan waxyaabahaas weeye waxyaabaha cadaadiska iyo South Africa oo runtii aad u shaqaysay oo maxkamaddii ku noqnoqotay oo runtii soo faktay waxa dhan meesha yaalla nasiib darro waxaan aragnay wadamo kale oo saasoo kale dacwadda u daba cararaya South Africa xoojinaya dhaqaalaha ku taageeraya hadda cunaqabateyn baa iyaga hadda dib loo maraykanka iyo reer galbeedka dhow kusoo jeesteenoo cunaqabateyn bay saarayaan in garabkooda la istaagay u baahan yihiin sababtoo xaqay u hiilinayaan kuwaanuna xaqdarraday u hiilinayaan in dad shacab oo masaakiin oo wax haystaan la argo aan hub haysan waxba iska dhicin karin layska laayo birta laga aslo dadka dhintay haddeerta waxa weeye 40 iyo 50 koray u dhaafeen dadka ku dhex jira magaalada burburtay meydadka ku jira ayaan wax la xisaabi karaan waxaaba laga yaabaa inta la tiriyo la ogyahay waxa ka badan baaba laga yaabaa kuwa ku jira daaraha burburay hoostooda ku jira inta carruur ee agoonowday inta waayeela oo ku carruur weysay inta aabbe ee ku faamili waayey inta aabbe oo la la'yahay oo dad wax hubaysanna aan ahayn dad wax iska dhicin karna ahayn in ay nimankan israa'iiliinta yiraahdaan ama ha yaraado ama ha weynaado waa bartilmaameed waa dembi dagaal injineer aad iyo aad u mahadsantahay 100% akhyaarta dunida daafeeda nagala socoto barnaamijkeena caawintaas ugu dhanyahay injineer abaalkaaga ma gudi karno intaan kaloo kale dib ugu kulmi doono haddii allah uu dal yiraahdo nabadgeliyo